dhammaan odayaasha gudoomiyaha deegaanka taliyaha deegaanka culamaa u diinka dhalinyarada maamulaha iskuulka iyo macallimiinta iskuulka waalidiinta qeybaha kala duwan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib ilaah weyne waxayd ka mahadle marka hore noo suurageliyey inaan ka soo qayb galno barnaamijkaani anagoo ka aftirsiimeyn alislaam waliimaan intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa si guud iyo si gaarba dhammaan bulshada deegaanka galweyn qaybahooda kala duwan odayaashayna sharafta badan qiimaha badan maanta meesha aan taagannahay ma joogi lahayn haddaysan iyaga garabkayna ahaan lahayn waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan bulshada deegaanka galweyn taliyaasha gudoomiyaha dhammaan intuba qof kasta oo kaalin ka qaatay barnaamijkaani maanta bilicladoo joogo iyo waxaan arkayno waa wax dadka deegaankan galweyn ay samaysteen weeyaan maanta waa anaga ciid gaaray noo tahay wax bulshada deegaanka galweyn ay samaysteen waa taariikhda markii ugu horreysay oo aan arkayno u dabaaldegayno shay anaga aan quruxsanay ka soo qaybgalayno aan ku farxayno ku dabaaldegayno marka maanta reer deegaanka galweyn waxay u tahay ciid gaar u ah iyaga waana wax lagu farxo adduunkoo dhanna loogu hambaliyaynayo ku dayashan ay mudan yihiin haddii aan isku tiirsanaano isgarab qabsano oo aan isku kalsoonaano sidaan iyo si ka daran ayaan gaaraynaa bini'aadamku wuxuu wax ku noqon karaa markuu isaga midoobo oo howlihiis iyo danihiisa isaga u midoobo bini'aadamka keliya ma aan xayawaanaadka hataa markaa u fiirisid shinnada waxay samaynaysaa malab aad u macaan badan waxay ku samaynaysaa hal meel markay ku kulanto ay ku midowdo awooddooda waxay ka soo saarayaan shinno aanan bini'aadamka malab aanan bini'aadamka soo saari karin sidaas la mid ah waxay samaynayaan awoorku meeluu ku kulmaa wuxuu samaynayaa dudun aanan bini'aadamka samayn karin waana xayawaan wuxuu ku sameeyaa waa awoodda la madeeyay waaye marka waxaasoo dhan waxaa sababaayo midnimada ay dadka ay midoowaan oo ay ku midoowaan arrimaha danahooda iyo ujeedkooda ay yacni u midoowaan sababaysa marka midnimada maanta reer galweyn ay midooween ayaa waxaan ku gaarnay guusha maanta aan taagannahay iyo dabaaldegga aan samaynayno maanta taas ayaa sababtay sidaa waxay mudan tahay marka inaan joogtayno sidiisuba barnaamij markii la bilaabo wuxuu leeyahay caqabooyin wuxuu leeyahay waxyaalo lagu farxiyo waxaan lagu farxaynin caqabadaha jiraaya inaan loo istaajinin ay noqoto wax laga tilaabo karo laga socon karo yani lagana gaari karo haddii sidiisaba ay jiraan dad lagu kalsoonaan karo la aamini karo ujeeddooyinkoodan uu cad yahay waxaa la gaarayaa guul midaan la midka ah marka inaan soconno oo aan tilaabno aanan u joojinin caqabooyinka naga hor imaanayo keliya ay addaadaan ahdaafteen iyo ujeeddooyinkiin waa waxa loo baahan yahay weeye marka reer galweyn maanta waan ugu hambalyaynayaa cid kastoo kaalin ka qaadatay runtii ammaanay mudan tahay bulshada qaybahooda kala duwan ay ka qaateen ganacsatadayna garab weyn ay ka qaateen odayaashayna waxay ka qaateen kaalin weyn taliyaashayna sidiisa deegaanada qaar markaad tagtid barnaamij aawadid noocu doon ha ahaado laaluushaa lagu weydiiyaa laakiin anaga deegaankayna taliyaash iyaga qaaraanka qayb ku darsaday oo taliyaha iyo baanduuliyaha min $100 ay ku bixiyeen barnaamijkan ay ku dareen sidaas la mid ah odayaashayna iyaga bixinaya ay hataa dhahayeen yani galeedayna u gadaynaa waxaasoo dhan marka waxaa sabab waayey in niyad wanaag loo haayo way deegaankani inuu hor u sii socdo la rawaad marka deegaanku wuxuu haystaa dad yani niyad wanaag u haayo oo yani inay dhistaan ay jecel yihiin in talaabada hor loo sii qaadana way mudan tahay marka guulahan oo kale saa u gaarno aan hor u sii talaabno aan hor u sii soconno aan dhaqaajino goobaha kale noo xigi doono ay hadda kawaanka iyo meelaha la arbaabayba aan ku sii xijino waana awoodi karnaa waana kari karnaa waana gaari karnaa haddii aan u midowno aan isku kalsoonaano caqabooyinka jiraayana inaan loo istaajinin dadkayna waxay isugu jiraan 3 nooc kuwa inay wax qabta ay rabaan ay wax qabanayaan iyo kuwa in wax la qabto in wax la qabaninba ay isku mid u tahay oo haddii la qabtana way sacbinayaan haddaan la qabanina ma kala jecla iyo kuwa in wax la qabta ma jecla iyaga inay wax qabtaanna ma rabaan kuwaas waa kuwana dhiwaay marka ay u baahan tahay ilgaar inaan ka fiirino marka kuwaasoo kale aan u midowno aan iska leexino annaga aan wax qabsan yayna caajisinin noocaasoo kale bilmithaal nin baa 2 nin isla socday
waxay maraayeen keli meel biyo ah waxay ku arkeen dibqalooc nin marka wuxuu isku dayay dibqaloocii inuu soo badbaadiyo wuu soo qabtay wuu qaniinay wuu iska daayay haddana wuu soo qabtay wuu qaniinay wuu daayay midkii saaxiibkiisa ahaayoo la socda wuxuu yidhi war dibqaloocan aad doonaysa inaad badbaadisid isagana uu ku qaniinaya mar kastana aad isku dayaysid maxaa kugu falayo ma iska dhaafteen wuxuu yidhi dibqaloocu dabeecaddiisa waxa weeyaan inuu wax qaniino anigana dabeecaddaydu waa inaan badbaadiya marka dabeecad aan ka dhigan anaga inaan wax dhisno waa inaan wax dumina maaha kuwa wax duminaya macno badan ma keenayso kuwa wax dhisaya macno noo keenaysa aan hor u sii talaabno reer galween waxbarashada ihtimaam gaar ah ha la siiyo qofka inuu wax barto isagay muhiimad gaar u leedahay sharaf iyo qiimo gaar uu ku yeelanayaa bilmithaal Suleymaan ibn al-Malik boqorka la dhihi jiray baa wuxuu booqasho ku tagay kacbada inuu booqdo rabay kacbadii markuu booqday waxaa la socotay la wiilo isaga dhalay kacbadii markuu booqdaayo wuxuu ku arkay nin aad loo qiimaynaayo kana dhashay dadka la yaso oo aan hantada haysanin aan waxba ahayn dadkii wuxuu arkay bulshadii oo dhan ninkaas aad u salaamayso aad loo qiimaynaayo boqorkii aan la fiirinaynin ilmihii marka ilmihiis ahaayoo la socdaya la yaabeena waxay yidhahdeen aabbo adigoo boqorkii meeshan xukumaaya ah aan sidaan lagu qiimaynaynin ninkaan la qiimaynaayo maxaa ka dambayso oo yacni ninkaan in la qiimay sababtay aabbaha marka ilmaha inuu wax fahansiiyuu rabaa markaasuu wuxuu yidhi yaa bunaya tacallamu alcilma fabilcilmi yashrafu alwadiica wayaxmilu alghaamila ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك وحير يا بني عرورتي تعلموا العلم أقوان تبرتا فبالعلم يشرف الوضيعة أقوان وحقيم يلي سقفك لا يسايو وينبه الغاملة وحي برارجين يساننك أو يعني عاجز لها ويعلو الأرقاء كو الضوامض أن ويكسر مرينيسا على مراتب الملوك بغرض درجة أي ليهين ويكسر مرينيسا قفك مركي لقيمين لا شرفاي أقوان لو شرفاي لغونا قيمين يا inaan caruurtayna wax aan ku barno si guud iyo si gaar waan idinku mahadcelinaynaa garab istaagii wixii aad baxsateenna maanta bilicdaana ka muuqato reer galween inay isku duubnaadaan iyagaa wax qabsan kara iyagaa hay-adda iyagaa dawladda wax walba iyagaa ah waxaan ka codsanayaa inay isku duubnaadaan ayna aaminaan dhallinyaradooda aqoon-yahanada ah bulsha haddii aysan aqoon-yahan lahayn aqoon-yahan hogaaminayso meel ay gaaraysa ma jirto laa yaslixu nnaasa fawdaa laa saraata lahum walaa saraata idaa jahaalahum saadu dadka haddii ay foodu ku jiraan oo aysan hoggaan haysanin ma hagaagayaan dadka haddii dadkooda juhaalada hoggaaminayaanna hoggaankana ma toosaayo si loo toos marka aqoon-yahanadiin ina aamintaan sidaan iyo si ka qurxoonaan gaaraynaa waan idin gaarsiinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ballan qaadaynaa annaga 10 sana aan u taagannahay deegaankan inaan hagaajino oo aan danihiis ka shaqeyno waana ka shaqeynaynaa inta nafta nagu jirto waana gaaraynaa guulaha aan rabno mar kastana garab iyo gaashaan baan u nahay deegaankayna iyo bulshadayna macno badanna nooma samaynayso kuwa doona inay yacni ama nacabsigeliyaan ama yacni ay rabaan inay naga caajisiyaan waxaasoo dhan macno malaan qaacidadayna waxaa weeye inamaa nudcimukum liwajhillaah laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shakuuran markaa abaal gashid laba shay aa loo galaa ama inaa waa mahadsantahay lagu yidhaahdo ama in abaalkaada lagu gudo labadaba ma doonayna anaga waxaan samaynayna ilaahay dartiisa u samaynaynaa waa mahadsantahyna ma rabno abaalgudna ma rabno horaan loo sii socon doonaa insha allah aadaa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu